dhammaan dadka diyaaradda saarnaa oo dhan way dhinteen marka laga reebo kaligeed. Haddaba sidee intaan muuqaalkan u guda galin waxaan ka codsanay inaad muuqaalka like noo saartid sidoo kalena page-ka follow noo soo dhaadid muuqaalkana share noo dhaadid hadda YouTube naga daawanaysidna inaad subscribe noo saartid. Sanadkii 1971 gabar Jarmal ah oo lagu magacaabi jiray Julian Kabiske ayaa waxay soo raacday diyaarad. Haddaba diyaaradii iyadoo cirka ay ku jirto ayaa wax dhacday in diyaaradda uu ku dhaco hillaac ama onkod kolba waxa uu taqaanaan markuu diyaaradii onkadii ku dhacay diyaaradii way burburtay dadkii saarnaa oo dhan way dhinteen marka laga reebo gabadhan Julian Kabiske oo 12 jir ahayd. Haddaba dadkii saarnaa oo dhan marka dhinteen iyadu kursigeedii ay ku xidhneed kursigeedii iyo saddex kale kursi ayaa la soo go'ay kadibna waxay ku soo dhacday kaymaha Amazon ee dalka Peru. Haddaba waxa muujisada ayaa waxay tahay gabadhan may dhiman oo badbaaday oo kaymihii ayaa lumiyay dheelitirkii iyo culayskii ay ku soo dhici lahayd dhulka oo waxa soo gaadhay dhaawacyo laakiin way badbaaday. 12 maalmood ayay waxa ku sugnayd kaynta Amazon. 12 maalmood kadib waxa helay rag kalluumaystayaal ah. Tan kooda ognayba kaynta Amazon ayaaba ah kayn halis ah. haddana gabadhan waxaaba ka soo badbaadayba halis kale oo diyaarad dhan oo burburtay oo cirka ka soo dhacday ay kaligeed ka badbaaday.